magacaygu waa Cabdiqaadir Cabdi Dilcow waxaan hees dareen la wadaagay degmada Axmed Jab marka heestan hadda qaaday waxay tahay anigu qosayso dareenkayga marka qofkii dhalinyarada wax dareema uu dareemi kara qof walba dhibkiisa uu ka turjumi kara ma dhawaan dhacda waxay u dhacday 2009 bishii 6 bay ugu dhacday wallahi kulleeba waxay ii daliishadeen ayaga baa ogaayeen anigu inaan dhalinyarada baan iska ahaa ardaya oo markaas xaafadiisa jooga halka degmada Daynil laban deganaa laakiin waxa ka bari jiray degmadan oo hawlwadaag waxaan rabaa inaan Cabdiqaadir Sacmar asaasiisan dhamaantiinba Instagram-kiigu igala soo xidhiidhay markaan arkay gacantiisii midig iyo gacantiisii iyo lugtiisii bidix oo markaan qiirooday iyo markii aan dareemay inaan xamar ay u baahan tahay nabad iyo nolol Sacmar asaasiya gudoomiyaasha iyo xildhibaaniinta oo dhammaan waana ninkii aan Instagram-ka markuu igala soo xidhiidhay oo sheekooyinka iyo qisooyinka wixii ku dhacay oo wixii diijasbaad ka magaaladan mar labaad Sacmar Aksan walaalkiisa mid baan ogahay walaaltinimo sinjiyo dareen iyo Soomaalinimo xuduud ma laha waa ninkii baray Sacmar Aksan Cabdiqaadir عاونا هسويني قضية
waxaan ku soo dhaweynayaa